قبري يوم حاتهاي وواحد يركاغا لك وبلعاغا لك وضعوا لبعيد كاحكتو ضش واعيد هوس واعيد حقا واعيد حقا واعيد بركين ملح قول ملح مرم ملح كبان ملح ليد ملح وهل ملح حاس ما جوجو عروري ما جوجتو والدي يا ولال اهل يا سوكيه waxaan maanta in isku baaxsanaynaa cidi ma joogto kaliya baa jiif amalkaagi baa kula jaara haduu xumaayo haduu wacna isaga kula joogo wax kale kula jooga ma jiraan isaga ku wehela halkaas aad gelaysaa halkaas aad ku hoyanaysaa wuxuu rasuulku yiri kaleey salaatu wasalaam qabriga markuu ka hadlay qabrigu waa deegaanka ugu horeeya ee aakhirada nabiga kaleey salaatu wasalaam Uthman ibn Affan wad garanaysaa ayaa lagu yiri Uthmanow marka aad qabri qof la aasaya timaado waad ilmaysaa ilmada ka soo qubata garkaaga way qoysaayo way soo dhaaftaa ilaa laabtaada ku dhaadhacda marka janna iyo naar la soo hadal qaado sida uma ooyid Uthman maxaa dhacay wuxuu ku jawaabay waxaan maqlay nabiga oo cishooyinka kamida yiri القبر أول منازل الآخرة قبري هو ديغامدا آخر ديغانك ugu horeeya ee qofku markuu dunida ka yimaado uu ku hoyanayo fa in yanju minhu hadu qabriga qofku ku badbaado fama ba'dahu aysaru minhu wixii ka dambeeya waa sahalo wa in lam yanju minhu hadaanu qofku qabriga ku badbaadi oo cadaab ku mutaysto fama ba'dahu ashad minhu wixii ka dambeeya waa kasi adag rasuulku alayhi salatu wasalaam waligay ma arag ayuu nabigu oranaya sallallahu alayhi wasallam eegada waligay ma arag muuqaal intii wax la tusayay shan u ark oo naar baa la tusay oo dunida meel badan buu arkay wax badan buu soo joogay waligay ma arag qabriga meel lamida nabiga alayhi salatu wasalaam meel qabriga lamida oo ka argagax badan dadka qofka la jiifinayo ma arag nabiga sallallahu alayhi wasallam qubuuraha arkaysa in badan oo kamida madow iyo mugdi baa buuxiyay nabiga alayhi salatu wasalaam waxa ilaahay ku iftiiminaya sababta la madoobaatay meel qura kama daloosho oo iftiinku ka soo galay cadceeda baxaysa way ninka arkay marka la aasayo qofka goobo iyo dhagax baa lagu malaas meel qura inaanu ka neefsan iminka hadii qadaha la xidhiidho leedkana la baqtiyo waa madow waxba arkin mayno meel qura oo furan ma jirto xabaashu waa aburanto waa xidhanta waxa qofka uu iftiiminaya qabriga iyo xabaasha nabiga alayhi salatu wasalaam amalka saalixa ah ay rasuulku tilmaamay sallallahu wa sallam alayhi xadiiska qataada wuxuu sheegay anasna uu warinayo qofka muuminka ah ama qofku markuu dhinto ee qabriga la dhigo nabiga alayhi salatu wasalaam waxa durtaba u imanaya isagoo dadkii aasay gawaadhidii baxaysay iyo shanqadhii iyo kabihii iyo codkii iyo waxa uu maqlayo nafta durtaba la soo gelinaya dabeetana waa la soo fadhiisinaya laba malag baa u imanaya way soo fadhiisinaya waxa la hor keenaya suurad iyo sawir nabi maxamed sawirkiisii baa la hor keenaya ma garanaysaa qofkaas hadduu qof muumina oo miyir qaba oo diinta ku dhaqma oo ilaahay ka cabsada oo dunidan is ilaaliyay hadduu qofkaasi ahaa durtaba wuxuu oranayaa ha waa rasuulki ilaahay ashhadu an la ilaha illa allah wa annahu muhammadur rasulullah rasuulki ilaahay inuu yahay baan qiray waa noo yimid diin buu na soo gaarsiiyey markaas waxa la oranayaa halka eeg waxa la tusayaa halkii uu naarta ku lahaa ma u jeeda halka ololaysa waa maqsinkii aad naarta ka gali lahayd waad ka samata baxdo alla ka badbaadi halkaana eeg waa jannadii halkaas hooygaagu yahay qabriga loo waasicinaya halkaas leeyda iyo macaanka iyo qabowga iyo nicmada jannada looga soo afuufo iska seexo namnow malnumat al-arus qof aroosa oo kale hurdadii seexo qabriga loo waasicinaya halka ay ishiisu gaadho nabiga alayhi salatu wasalaam ya loo kala fikinay ki gaalka iyo ki munaafiqa marka la horkeena suuradii iyo sawirkii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam garanaysa illa dunida waa mid dafiray iyo mid diinta ku tuntay iyo mid ilaahay iyo rasuul ballaastay suu caayay dunida intuu joogay ayaa la hor keenay ma garanaysa markaas oo oranaya ha afkala qaad ba ka soo qareeyay cabaad xaba garan maayo dadku wax le waa maqli jiray markaan dunida joogay laakiin maanaaba dhugtay oo eegay xaqa malaa'igta la oranaya garaaca dubayaal iyo burar dira bay la dhacayaan oo halkaas kaga bilaabaya cabaadka ka baxaya jinka iyo insiga mooyaane makhluuqa intiisa kale way maqlayaan nabiga alayhi salatu wasallam sidaas loo garaacaya ilaa inta qiyaamahu u kacay